iyadoo la filayo in caasimada Somaliland ee Hargeysa ay ka furmaan tartamada kala duwan ee ciyaaraha Somaliland isla markaana ay caasimada Hargeysa ku soo qulqulayaan ciyaaryahanada kala duwan ee ka socda gobolada kala duwan ee Somaliland ayaa maanta oo 27ka bisha October waxa magaalada Gabiley ka ambabaxay gelinkii dambe ee maanta isla markaasina u sii jeeda dhinaca caasimada Somaliland ee Hargeysa ciyaaryahanada kala duwan ee gobolkani Gabiley waasoo iskugu jira ciyaaryahanada kubadda cagta ciyaaryahanada kubadda kolayga iyo waliba orodka haddaba intii aanay maanta ka ambabixin caasimada gobolka cagaaran ee Gabiley waxa munaasabad ballaaran oo lagu sii sagootinayay ciyaaryahanada kala duwan ee gobolka cagaaran ee Gabiley loogu qabtay hoolka shirarka dawladda hoose ee degmada Gabiley halkaasi oo ciyaaryahanada reer Gabiley ay kula sii dardaarmeen uguna sii duceeyeen qaybaha kala duwan ee bulshada Gabiley maamulka gobolka iyo ka degmada iyo waliba shirkadaha kala duwan ee ka howlgala gobolkani waxaana xusid mudan in qaar ka mid ah shirkadaha ka howlgala Gabiley ugu deeqeen deeq lacageed oo dhan $3,000 halka qaarkoodna ay agab ciyaareed ku wareejiyeen ciyaaryahanada reer Gabiley waxaana ugu horeyn munaasabadaasi ka hadlay qaar ka mid ah ciyaaryahanada iyo tababarayaasha kala duwan ee gobolkan Gabiley u matali doona tartanka ciyaaraha kala duwan ee Somaliland koobka halka keentaan noqotaana kooxda ugu dambaysa ee Hargeysa ka soo ambabaxda waayo kooxda ugu dambaysa Hargeysa ka soo ambabaxda waa kooxda koobka qaaday laguna soo dhaweeyo ilaa iyo inta madaxweynuhu siinay koobka laakiin waxaan soo koobinayaa insha Allah sanadkan waa sanadkeeni wuxuu ina galayno arkanaa dadaal iyo huuban looga baahan yahay iyo sharafta gobolka inaynu ilaalino insha Allah billahi kariim aynu koobka gobolka keenno ma hadda waxaanu celinayaa maamulka gobolka oo Mayor Amiin hogaaminayo oo mar walba nala garab taagan hiliyaho xagga kubadaha dreyska garoonka miidiyuhu maalmahan bumbuuninayay oo la isla dhaxyaacay khilaafkaasi jirayna mu jirin una dhamaaday hadii wax la tabtay maanta waxaanu nahay dad gacmaha haysta oo wada socda oo dhinac wada jeeda tan ciyaartooygiina hay waxaana la geliyay dadaal fara badan muddada aanu xareysnayn waxa weeye anaguna waxa maanta looga baahan yahay inaanu dadaalkii ciyaartooyga la gashaday maamulku inay midhiisa helaan taana waxa lagu helayaa inaynu isku duubnaano oo hal meel wada jeesano oo inuu hal mar meel ka wada dagaal galno insha Allah maanta waxaanu fadhiyaa kama dhameystii guushu meenu fadhinaa horta marka hore Allah inagu soo geeyo koobka saddexdeena qayboodba kulli hadaf aynu wada leenahay intaasi kadibna waxa hadalka iska daba qaatay maamulka gobolka Gabiley ka degmada Gabiley xubno ka socda shirkadihii iyagu deeqaha kala duwan ku wareejiyay ciyaaryahanada reer Gabiley iyo waliba isduwaha wasaaradda ciyaaraha ee gobolkani Gabiley waxaana dhammaan hadaladoodii kamid ahaa midkan aad baan u sii dardaaraya waxa la war koob hore dad noo keenteen ay soo dhanina de koobka wad keenteen koob leeniga sugay waa la iniga fadhiyay ninka laftigiina qolada fuudkana waxaan leeyahay de sida ay koobka u wataan ee loo leeyahay maanta waa iniga fadhinaa ku kale inaad ininka watay insha Allah bidnillaahi kariim aad noola timaadaan oo anako faraxsan halka ay nigu soo dhaweeyno gobolka saddexdiina kooxood insha Allah oo ka farxiya maamulkiina oo xoog badan iyo dadaal badan iyo fikir badan bay idin galiyay runtii marka la barbar dhiga gobolada kale maamulkooga marag idinka hoon idin sheegaya inay idin galiyeen juhdi badan saddexda shirkadood ee maanta halkan kaga qayb galayno sagootinka sportska gobolka Gabiley shirkadda Xaaji Muuse Construction Company Meecaad Construction Company iyo Bedel Construction Company annagoo ugu tala galnay inaanu idin xusuusano garabkiina istaagno $3,000 aanu ugu tala galnay sportska waxaan rajaynayaa intaas oo noqon maysee wadi garab taaganahay sanadkan aynu isla garanno inuu sanadkeeniya oo saddexdaba inagoo sidanayno ma isla qarnaataa oo intaynu ka yaabinay sida koob soo qaadano waxaanu hayn anagu ragii kubad lagu xiray intaan dawladda hoose soo dooranay kubad in maanta la wata wadar ka saano wadi garab taaganahay har iyo habeenba mudana gudoomiye anigu waxaan ku qabaa ciyaartooyga kalsooni baan ku qabaa inamada fuudkana waxaan leeyahay saddex ogaada isku tanaasul dulqaad iyo ina samir yeelatan kubadda halkiina taala maanta waxa noo magaca waxa noo maabuusa waxa noo sharafa wixii aad keentaan geerilay magaceegi maanta idinka halkan anagu qalinka ka inay maanta idinka lugtaad ka haysaan iyo gacmaha waxaan halkan uga mahad celinayaa shirkadda soo oo qalab runtii inoogu deeqday saddexda xulba waxaan u mahad celinaynaa ganacsatadii halkan lacagta dhiirigelinta kaga dhawaaqay saddexda shirkadood Muuse Construction Company Meecaad Company iyo Bedel Company waxaan leenahay ilaahay halkaad ka soo saartay wax ka khayr badan ha idin geliyo waxay u tahay dhiirigelin dhalinyartiina
qayrkood la soo tartamaya sharaf bay u tahay idinkana waa idinka mahad celinaynaa si gaar ah isna ugu mahad celinayaa maamulaha Sagal Jad oo runtii ilaa xalay ilaa imika boardka aad hadda arkaysaan waxaynu ku xasuusanay xafladda bilowgeedii imikana isagoo diyaar ah buu keenay aad iyo aad baan runtii ugu mahad celinaynaa koobka kubadda cagta iyo koobka kubadda kolayga iyo biladadaba inaynu gebili keenno waxaan taa ahayn inama marayo qofka bilaaadankii wuxuu laabta geliyo waa inuu ka midho dhaliyo laabtiina geliya inaad koobabka keentaan ka koobabka inoo ballana biladaha inoo ballana ilaahayna insha allahu tacaala uu inagu soo guuleynayaa waxa leeyahay dhalinyarada waxaynu ku soconnaa waxa weeyaan waa dagaalkaynu ku soconnaa badi wuxuu baday cidaynu u dagaal tegaynaa waa reer bari dalka laba gobol un baa inaga galbeedeeya marka waxa weeyaan dagaalkaasina wuxuu noqonayaa dee guul inaynu keenno guusha sida lagu gaarayaana waxay tahay waa midnimada iminka aynu ku wada soconno waxaan filayaa in saxaafaddu ay qoraysay in ay kooxdii kubadda cagta ay iska soo horjeedaan ama khilaaf ku dhex jiro saxaafadduna way joogtaa waxaan u malaynayaa raggii ay wax ka qorayseen siday doonaan wax u dhacaana goobtay fadhiyaan marka wixii ay qorayseen waa inay waxba kama jiraan waayo hadday maqnaan lahaayeen maanta waa idiin rumoobi lahayd waa run waxaan qirayaa in sida laydiin garab taagan yahay dee nin kastaba ninkiisii waa isgarab taagayaa laakiin tani waxay dheeraad bay aad iyo aad u tahay waa laydin buunbuuniyey buunbuuninta kaga dhabeeya oo waxa weeyaan inaynu koobkii ama koobabkii gamceenna ku soo qaadno aynu soo noqonno inagoon sidin si kastaba ahaatee gelikii dambe ee maanta abbaaro 5tii galabnimo waxa si toosa ciyaaryahanadani ugu ambabaxeen caasimadda Somaliland ee Hargeysa oo isla caawaba ay ku hoydeen waa Maxamed Xasan Sheekh Maxamed Jubba muuqaal maqalka caalamiga Kalson gobolka cagaaran ee Gabiley.